bismillahi raxmaani raxiim. kusoo dhawaada barnaamijkeena la magac baxay baro programming adigoo jooga hoygaaga. barnaamijkan alaab waxaa halkan idinka kusoo diyaariya anigoo cabdiciise maxamed xasan. barnaamijka waxaan ku baranaa maadada c programming ah si introductionkii hore ugu soo qaadanay. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno introduction of c programming language. hore waxaan ugu soo baranay programming maadaama ay maadadan ay kamid tahay maadooyinka programmingka ah. waxaan hore ugu soo hadalnay programming wuxuu introduction hore oo programming guud aan ka bixinay. secondary lecture waa cashirkii labaad aan maanta halkan ka diyaarinay. barnaamijkan si aan sheegno wuxuu noqon doonaa barnaamij imtixaano ah oo basic u ah programmingka. unit ayaan uga hadli doonaa dhowr unit 6 unit aan soo sheegnay unitka hore inaan ku baran doono koorsadan gaaban. koorsadan waxaa gacan weyn iga siiyey saaxiibkii Abubakar inaan halkan kasoo jeediyo. marka waxaan rabnaa maanta inaan u guda galno c programming. c programming sidaan sheegnay waxay kamid tahay maadooyinka basic of programming. waxaan lagu develop gareeyay laboratory ku yaal Mareykanka oo loo dhaho ATS Bell Laboratory. Mareykanku ku yaala sanadkii 1972 ayaa la develop gareeyay maadadan. waxaana develop gareeyay Dennis Rogers ninka lagu magacaabo ayaa develop gareeyay sanadka markuu intaas ahaa 1972 ahaa. maadadan waxaa lagu magacaabaa mother of programming maadaama maadadani oo basic u tahay programming language. marka waxaan jeclaystay inaan halkan ka bilaabo maadadan inta badan maadaama ay ugu muhiimsan tahay maadooyinka programmingka ah. insha allahu tacaala koorsadan markaa dhameen waxaa jiri doonta koorsooyin imtixaan ah. barnaamijkan waa barnaamij insha allahu tacaala noqon doono imtixaan ah. maxaa u baahanaana marka maadaama barnaamijkan waxaa u badi doonaa practic. okay, maxaan u baahanaanay saan u isticmaalno c program. laba shay muhiim ah: editor compiler. si programmerka rabto meel oo koodka aad ku qorato iyo compiler ku rangareeya software badan oo loo adeegsado ayaa jiro barnaamijkan oo c programming ah. saa u jeedaan waxaa kamid ah code block ana kamid ah waxa loogu isticmaalo c programming. waxaa kaloo kamid ah Drupal c. waxaa kaloo kamid ah code kaloo lagu magacaabo Dev++. waxaa kaloo kamid ah Dev C++ kana lagu isticmaalo asigana uu kamid yahay. dhowr barnaamijka kamid ah. marka anaga waxaan qaadanaynaa insha Allah taala internet-ku waa kasoo rogi kartaan waqti ku sii lamayn. waxaan qaadanaynaa Dev++ kana aan ku shaqeyn doono insha Allah taala. marka soo wada jeedaan markaad rabto inaad code-ka ugu horeeyo ayaan bilaami doonaa insha Allah taala. markaad rabto code-ka ugu horeeyo inaad qorto markaasaan barnaamijku ugu soo kaco halkan ayaad klik ku sii kartaa. meeshaas marka calaamada saarto waxaa ku muuqanayo new oo ah page cusub fur ama filekaas inaad klik ku siiso. kadib ama halkan waxaa ka dooran kartaa new. kadib adigoo falaarta ka dhaqaajinaya ku soo kartaa falaarka. kadibna waxaa halkan ka dooran kartaa source file ama si fudud adigoo waxba taabanin meeshan waxa ku qoran control kasoo naqanaynaa. waxaa taabaneynaa control n waa taaban kartaa intaas. marka si fudud intaa waxaan ku dhahnay new source new control intaas page cusub baa furmay. saa u wada jeedaan magaca malaxan iyo untitled oo ah wax magacaleen. marka hore waa save gareysanaynaa saan ugu qorno. waxaad rabtaa ku qoraysaa halkan fast program ku bixinayna insha Allah taala. fast program ku qorayna fast program extension ka raacsinayno. halkan waa ka dooran kartaa source.c. intaan source.c file aad dhigi kartaa. waxaa kaloo ka dhigi kartaa internet.c aad dhigi kartaa. waxaan u baxsanaynaa folderkaas magaciisa waxaan ku qoraynaa practice of c. practice of C ayaan ku qoraynaa. wax walba aad halkan bay ku soo gelayaan halkaas ku rangareysa ku soo gareysay. meeshaan save ku dhayna waxaan ugu qoran fast program source-giisa waa
extension ka isticmaala waa .c inta .c asaa laka automatic maadaama inta noo dooran tahay asiga automatic kuraasaa laka hadday wax kala dooran tahay man raacsiinayo marka waa qasab ah extensionka inaad doorato ama halkan aad raacsiiso .c save ayaa leenahay programka ugu horeeyay ayaa diyaar ah halkan lagu qori karaa. Okay, inta badan first program waxaa loo soo bandhigaa hello world ayaa lagu bilaabo programming ugu horeeyo la sameeyo markaan qorno kadib line by line u sharxi doona insha Allah taala hashin include wax laga wado insha Allah line by line u sharxi doona std.h kadib aan soo degnay calaamadaas wixii laga wado waa sharxi doona line by line insha Allah taala mid u sharxi doona markaan dhameeno. Okay, sarka ugu horeeya maxaa waaye hash include studio maxaa laga wadaa saan ugu jeedno horta sharka waa la preprocessor hashtaas include preprocessor loo yaqaana intaan oo ku jirto calaamadaas taagkaas ku dhex jirtana waxaa loo yaqaana waa file kaasoo standard input output wax kastoo lagu halkan loogu qoraayo qaabilsan compilerka inuu u turjumo. halkan waa functionka waxaa lagu aqoonsadaa labadaas breakdown leeyahay main function program walba waa inuu lahaada ugu yaraan one main function. printf kana waxay qaabilsan tahay waa function kaasoo failkan ku dhex jirto aan soo sheegnay. functionkan wuxuu qaabilsan yahay marka inuu wax soo bandhigo. functionkan haddii inta waxba lagu sheegin oo header fayladaas laga tago waxba shaqeyn maayo. curly brackets kana ka tagnay waa bracketka qasab in la furo haddii aan ka tago programkana ma shaqeyn doono. printf aan dhahna function waayo qaabilsan inuu wax soo bandhigo. bracket yara furnay labadaas bracket waa muhiim kadib calaamadaas labadaas calaamad oo loo yaqaan calaamad double quote ma la calaamad tansiis af carabiga lahan hello world ayaan ku dhex qornay kadib calaamadii aan ku xirnay kadib calaamadaas semicolon ayaa gadaal ugu dambeysay. intaas waxaa la basic of programming intaas waa maadooyinka waa basic u ah first program soo bandhigeen intaas waan fiirinaynaa bal inuu shaqeynayo kale marka la rabo inuu shaqeynayo dhowr meelaha laga sameeyaa. waxaa sameyn kartaa execute inaad dhahdo kadibna compile and run aad dhahdo waa qaybta ugu horeysa compile and run oo isla jiro ama waxaad dhigi kartaa F11 labadaas qodob waa isticmaali kartaa. Okay, aan sameyno sugayna saa wada muuqataan waxaa soo bandhignay hello world soo baxday first program soo bandhignay insha Allah taala waa maanta iska introduction ah barnaamijkeeni labaad qaybtiisa labaad secondary C programming ayo introduction kii hore waxaan ugu soo hadalnay programming language kan ugu soo hadalnay ka waa introduction of C programming. insha Allah taala waxaa xoog saari doona programmo badan halkan kusoo gudbi doona insha Allah taala wixii su'aal ah ama comment ah barnaamijka qaybtiisa oo la wadaag wixii su'aal ah qabto wixii fikiraad rabto barnaamijkeena noogu soo biirisin oo kusoo dhaweynayna mar walba waan soo dhaweynayna waxay dhaliilayo wax walba aad qabtaan barnaamijka ka qabtaan insha Allah taala qaybta hoose noogu reeb fikirkaaga waa muhiim mar walba. barnaamijkan haddii uu kusoo gaaro hadaad ka heshay barnaamijku waa sheekari kartaa saaxiibka u baahan barnaamijkan la wadaag si uu wax badan ugu faa'iideysto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.